sharaf bay tahay joogistaan halkan joogno waxaanu ilaahay waxaan danaqaynaa insaanka kala fadhiga noo qabsoomay waa xuquuq iyo awood dastuurku xeerku siiyey walaaladeydii markii hore bay doortay waxaan uga mahadnaqayaa inay markii horena 5 sano ay doorteen maantana igu yidhaahdeen amaanadanu kuu dhiibnay inoo soo celi anaguna si kalsooniya oo niyad samiya ayaan u aqbalay waana ku faraxsanahay wasiirkayga dowladaha hoose iyo baro saabka gobolkana waxaan uga mahadnaqayaa inay xuquuqda xeerku siiyey mudanayaasha golaha deegaanka Hargeysa inay u ogolaadeen inay practice gareeyaan iyagana waan uga mahadnaqayaa dowladnimadeena way u wanaagsan tahay in xeerka lagu shaqeeyo oo marka xildhibaanadu intooda badan ay dalbadaan in ka fadhi aan caadi ahayn loo qabto in loo qabto daanay sababuhu lagu qanci karin waa laga doodi karaa laakiin waxaan aaminsanahay maayiradu inay shaqada iyo xilka loo dirtay gutaan xildhibaanaduna hadday codsadaan ka fadhi inaan laga caburin laga hor istaagin loo ogolaado dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee reer Hargeysa gaar ahaan iyagana waxaan uga mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd hawsha intay socotay ay doorkooda u qaateen hadday tahay in dadka maartay nabadgelyada la adkeeyo iyo hadday tahay in doorkoodii xukuumadeed ay gutaan taliyaha ciidanka bilayska waxaan isagana uga mahadnaqayaa sidoo amniga iyo ammaanka u ilaaliyay la xalay iyo soo jeedkii badnaa ee ku dhacay isagana uga mahadnaqayaa madaxweyne nalaga dardaari maayo wato wax iska caadi ah hanka raggu isla jeedan mararka qaarkoodna dadka hanka isu tanaasul gaarsiin oo midnimo raggu hankooda barhal liqaan way yara adkaataa mararka qaarkood laakiin imaka hadda mar dhow baa wada hadleen marka waa soo imanaynaa hanuun bay ahayd hankiiba halkan kala geeyey hankana sidiisa waxa lagu maamulaa inta badan waxay doonayso sharciga saas uu qaba marka waa hanuun walaalnimada may dhiman raggaasi waa rag qiimo leh waa rag sharaf badan waa walaaladayo waa ka daba tegaynaa waa baryaynaa waxaan si gaara madaxweyne anugu ugu mahadnaqayaa qofku markuu mas-uuliyad qabto dadka waxaan ku odhan jiray daanu oday magaalo maan iska noqonayaa marka xilka ka tago bilmacnaa kelima cabdiraxmaan maanta marka laga yimaado inuu yahay mudane golo deegaan wuxuu muujiyey inuu odaygii magaalada Hargeysa yahay definition-ka iyo title-kaana uu u qalmo leeyahay waayo doorkiisu saaqaa maqnaansho uu ka maqnaado kulankayaga saaquna way kulan yara bay noqon lahayd joogistiisu way qurxisay way bishay dadka reer Hargeysana waxay arkeen in odaygoodii hore uu fadhiyo meel uu fadhiyana wax wanaagsan lagu hayay markaa ku raacayaan aniguna madaxweyne inkastoo dee maalmo ii hadheen waxaa iga ballana inaan odayga ahaado walaaladii barbar taagnaado wixii aan la qaban karaya aan la qabto wax kasta iyo meel kasta iga baahnadan aan la taagnaado walaalkiina waan u ducaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay barakeeyo isaga awlaadiisa ubadkiisaba odayga argeysadee raggii iyo Somaliland xaaji cabdiwaraabi iyo anaga nalaaleeg iyo sheekh muuse goodaad iyo sultaan cabdiraxmaan iyo ayay shaqada bilaabeen ilaa maalintii ka gudgalayay aynigii baan joognaa marka aniga cabdiraxmaan iyo inaan kuntiga geeshiga iska dhigno dadka isu doono saamaxaad ka dalabno sidoo iska dhib badan tahay oo markaad position qaadato dadka qaar baa aqoonsanay wan jeclaanayn position-kaaga laakiin dad wanaagsan oo noo cali ku sii badan malin marka inaan ka daba tagno Hargeysana dee oday labaad oo soo kordhay ma noqonayaa aniga walaalkii waa iska rabsanaynaa odayaasha meeshaan u dhiibnay meesha loo doortay saakana ilaahay waxaan uga baryayaa hawshu way culus meeshu meel sahlan ma cabdiraxmaan barigii bari maalin baan ku wari oo barigii kuma turtureen haddaan ogaan lahaa hawshu culayska leedahay ayaan ku wari marka dee aanu culayskan garanaya marka walaaladay waxay iga helayaan garab istaag bay iga helayaan iyo shacabkood in badan waaniyo si loola shaqeeyo iyagana ilaahay waxaan uga baryaa labadaas sano culaysku weeyay in ilaahay u khafiifiyo ilaahay u fudeeyo adigana madaxweyne waxa kaaga mahadnaqayna odaygii baa tahay koobaad labaad ee dalka madaxweynaheenina dadaalka iyo hawsha iyo aqoonsiga uu ku maqan yahay isagoo guul ka soo gaaray in ilaahay inoo soo celiyo ilaahayna hayna guuleeyo madaxweyne. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.